جريري جلاع وأيدي سلامي ملو البواجوكتان سودو هذا سودو هذا سودو هذا سودو هذا سودو هذا جريرتي جلاع هذا بوجي وكحرن عاو هل ساعة قسلاهي اسكا وأيقا قسل سيسان كرانتي قيب وينة كليدين دور وينة كعيارتان إن أدو فرحو مقالكن شرقرية سومالي دا وحان ربا إن كبرو مقعيدا أفكا سومالي كبحا أما مقعيدا سومالي أحي مقعيدا عن سومالي أحين قردون الرياكشن أيان ربا إنان بلابو أو أن كسو كرديو بيج كيغا أو أن أفكا سومالي وقهد لي قلادات كان لغا قلو هدي فنانين تاي iyo haday cid kasto dadka hadla ay tahay haday mas'uuliyiin yihiin iyo hadii kale share gareeyo marka alla share gareeyo waxaan soo dhigay post yar share gareeyo war share gareeyo jireertii jilaad ha gaari share gareeyo please alla share gareeyo dartiina u soo galay muuqaalkan live ka ah sabab kalena ma aha inaan idinka idin sharaxo ama idinkaga waramo post aan hadda soo dhigay dadku waa aad u kala jecel yihiin waalidiinta aan hooyaday aabahay waan jeclahay especially aad waxaan u jeclahay hooyaday heerka aan gaarsiisanahay iyo wax walbana iyadaan uga mahad celiya alla ka sokow ilaahay subxaanahu watacaala hooyo wuxuu inoo geliyey naxariis gooniya oo uusan aabbaha lahayn ayay hooyadu leedahay marka waxaan soo qoray magaca hooyaday waxaa la yidhahdaa mako bulug bayaad deeqsi malable dadka qaar waxay ii soo qoreen shaashaha habartaa shiinesmiya habartaa soomaali ma ahmiya habartaa kan ma ahmiya maxaa waa magacyadan ma fahmi la'anahay marka hore waxaan samaynayay inaan dadka ribalayga aan isku dayo inaan uga sharxo marka dadkii aa batay marka waxaa is iri bal ribalayga inay fahmi waayaan oo halka qof uu ribalayga ku ekaada laga yaabaayo bal u sharax si guud ugu sharax Soomaalidu waxay iska jecel yihiin magacyada oo carabta maadaama ay dhahaan annaga waxaan nahay carab aniga waxaan nahay reer Shabeelle qabiilkayga especially waa part of Jareer waaye reer Shabeelle wuxuu inta badan Jareerta kale uga duwan yahay marka magacyada la sheegayo magacyada reer Shabeelle ay baxsadaan way ka adag yihiin magacyada kale Soomaalida dhan iyo Jareerta way ka adag yihiin waxayna ku saleeyaan magacyadooda waxyaabaha bay'adeena ku salaysan oo kale ay ku saleeyaan sharaxaada guud oo magaca hooyaday waa idin sharaxi doonaa aan hooyaday magaceeda magac carbeed waay because mako la dhahaa mako waa garanaysaan mako al mukarrama hooyaday magaceedu waa magac carbeed waaye sababta maka ay ugu baxdana waxay ahayd aniga awowgay yacni iyada aabaheed waagaas wuxuu ahaa dadka sacuudi degan ayuu ahaa marka sidaasuu maka ugu bixiyey hooyaday laakiin hooyaday xataa magacyada waxay yeelan lahayd oo reer Shabeelle ayay yeelan lahayd sambal hadaan idin siiyo intaanan magaca awowgay iyo aanan sharaxin awooyaashay aanan idin sharaxin waxaa idin sharaxaya dadkeena reer Shabeelle ah magacyada ay baxsadaan idin sharaxayn waxaa ka mid ah gacalo magacan gacalo wuxuu ku fadhiyaa macno weyn marka afka Soomaaliga loo tiiriyo oo la fasiro يعني magacaad u weyn waa oo qiimo leh wuxuu ka qiimo badan yahay boqolaal mar magacyada gabdhaheena Soomaalida gaaraan fardheerta loo bixiyo Sterling oo kale aad uga fiican yahay Shabeelle la baxo gacalayna waxa kale oo kamid ah magacyada reeray ay la baxaan muraayo fiir mid kastana macnu leeyahay muraayo waxa la gabdhaheena Shabeelle iyo hooyooyinkeena iyo waxa loo bixiyaa muraayo ma taqaan muraayo waxa la yiraahdaa يعني ميارد أما مرايد أما مرايد
gabadhi waxa loogu yeeraya marka magaca muraayo ma taqaan waa qof wanaagsan muraayada waa la iska dhex arkaa waxay ku tustaa wax kastoo xumaana way kula talinaysaa wajiga halkan waxbaa kaa saaran inta waxbaa kaa kan saan waaye kan ay ku leedahay way kula hadlaysaa muraayada way kula talinaysaa wuxuusan qof kale kuu sheegayna kuu sheegay marka muraayo waa qof wanaagsan oo la iska dhex arki karo magacyada noocaas oo kale ah oo magacyadu ay jareerta baxsato waxa kamid ah magacyada jareerta baxsato roble gaaraan Shabeelle roble lagu leeyahay magaca roble badana waxaa nala wadaaga Soomaalidan kale badana way nala isticmaalaan cunug waxa uu dhalanaya iyadoo roob u da'ayo cunugaas markuu waxa laga yaabaa cunug kale jilaa ama dadkan kale caadiga Soomaalida kale inuu leeyahay cunuga magaca kitaab laga fiiriyo waliba dadka jareerta caadiga ah magaca kitaab laga fiiriyo waxa la dhahaa cunuga dhashay magaca macalinka loo tago cunuga magaciisa kitaab laga fiiriyo laakiin Shabeelle badana ma lis dhibaayo roob haduu da'ayo cunuga magaciisa roob la alay ciidu dhashay maalin ciidu dhashay arafo tahay arafo Soomaalidu waxay halkaas nagala wadaagaan arafaad magacaas way u bixiyaan anaga waa dhahnaa gabdhaheena oo kale waxa kamid ah isniino mantaqaan isniino Shabeelle baxsado يعني يوم اثنين دلانه مال اثنين دلانه waxa leeyahay gabadhan isniina la yiraahdaa lahjada xogaa lahjada rashawe la ngasharay gabartan ma arki isniina la yiraahdaa alle isniino alla yiraahdaa magacyada kale baxsana waxa kamid ah axado sidoo kale axaday dhalani markii had dhalato waxa la leeyahay axado gabadhi waxa leeyahay axado waxa kamid ah magacyada aan baxsana waay ma yara tusaale habartii oo wabigi biyo ka doontay uuray lahayd sambal wabigi biyo ka doontay ama odayga biyo wabigi ka doonay foosh qabat xareeday leedahay ama roobaad ay guriga hortiisa xareed soo martay wiilka markii la dhaho waxa leeyahay xareed gabadhayda waxa leeyahay xareedo yani waa magacyada Soomaaliga ee saxda ah hadaad rabtaan kuwan kale la habeeyay idinka hadaad rabtaan oo Khadiijo بارلين استرلين رويدو مودو شوكولاتينا كلكلينا هذا عصر بتاعن معها أنا كأن أصلك كان هو يده وصل الله بنا مرك هو يده وحالنا مكة بلوك بيات دقسي ملابلي فاندين هذا سيوض دي ما بفهم إذا هذا سيوض هو يده وحكينا له بقرطو يده قصر يده كنا له تيو إسلام رشابه الله waxay ka dhalatay reer la yiraahdo reer bulow waxay dhahaan bulow cabdiyaan ka dhashay bilis maxaan ka bariya bulow cabdiyaan ka dhashay maxaan bilis ka bariya magaceeda idin sharaxay marka mako waa magac carbeed waay waana taqaanaan mako halka la yiraahdo iyada xagga iska dhigno marka su'aalaha waxa laga keenay waxay ahayd magacyada kale oo buluk mid u sharaxaya marka buluk waa mid kamid ah kalarada aadka loogu jecel yahay dunida waa kan kalarka calankeena kamid ah bulug wiilkaas hooyadii iyo aabihii dhalay ee reer Shabeellaha ahaa wiilka bulug loo bixiyay ee aniga awoogay ah yani wanaaga iyo jacaylka loo qabay kalarkaas buluga ah iyo iftiinka uu iftiimaayo kalaradu way kala duwan yihiin hadda kalarka guduudka oo kale iyo kalarka madowga oo kale ma iftiimaan laakiin buluuga oo kale cadaanka oo kale waa magacyada iftiima waay marka ninkan magacaas waxa waay Cabdi Bulug waay waxa la dhihi jiray waa wiilkii buluga ahaa si kale u fahmaysaan Soomaalidu waa dib badan yihiin بلوك ما كلر ناقدي على ده سوما مقشان بلو أي إنه بلو جاي لا ده خفتاس إنه عجارة لا ده سوما مقشان يعني حبرتي الشيء يأذيك علي والكود بلو وها يعني قروح ديسا يو قيمها وأكتو ذكلها أيو كقاتي مجعس بلوك مركب أن أوجي الله أنه حريسته يقول دعية إلى جنة فردوسها كورابيو هذا أنجعله أوجي أيها الأورني مركب بلوك ساس واي مجعس وبلوك وأنا إدين فسريو معناه وتفهم ميسان وويل يعني آدو قروح بدن وإفتيم مايو وناكسن دي أمانتها أفك سومالية أيو قيبك
aabbahay marka aabihiis maxaa la oran jiray isna oo reer shabeelle ah waxaa la oran jiray bayaad bayaadka dadka hadda jooga ee yaryarka ah dadka 2000 dhashay ma i fahmi karaan bayaadka aan ka hadlayo hadda iska waxaa la isticmaalaa wax la dhaho A4 ayaa la isticmaalaa dadka wax shukaansadaa yaqaana bayaadka aad wax u qoray bayaadka waxaa waaye warqadaha buwaagta waaweyn ku xiran sida A4 oo kale u diyaarsan tahay dilmihii waxay leedahay oo maxaa la dhihi jiray buugga ayay leedahay marka bayaadkaas fariimaha lagu qoran jiray fariimaha ayaa lagu qoran jiray marka la shukaansanaayo hadday geeri dhacdo haddii warqad waaye marka bayaad waa warqad si kale haddaan kugu sheego hadda waxaa la isticmaalaa A4 la dhahaa adduunyadan hadda way ka tagtay in warqad laysu qoro oo computer wax lagu qoro hadda waa aragtay soo ma laakiin bayaadka qalin iyo waxaa la isdul saari jiray buug waxaan xasuustaa 2007kii aad wiil waxaan ahaa balaayo ah dee jareer maxaa taqaanaa adigu 18 years jira 18 sano jira oo maasha allah subxaan allah waa jareer ya wiil aad u shukaansi badan ahaa marka gabdhaha waxaan u qori jiray bayaadkaas marka waxaan samayn jiray love warqadda markaan ku qorqoro waxaan rabo oo gabadha u sheego jacaylkayga u sheego ayaan love iyo saari jiray aan warqadda saari jiray warqaddaas noocaas ahayd ayaa la yidhahdaa bayaad haddaad warqadda ila fahanteen marka waa sharaxaya marka maxay bayaad maxaa loogu bixiyey micnaha bayaadka loogu bixiyey maxaa waaye waxay ula jeeda hooyadii iyo aabbihii aniga ayeeyaashay awooyaashay ahaa ee awowgay aabihiis u bixiyey magacan yacni bayaad wuxuu ahaa waa qof sida bayaadka oo kale ah yacni sida qof warqadda oo kale warqadda soo ma cadda warqaddu way caddahay wixii lagu qorto waa laga arkaa qof sidaas oo kale ah oo u wanaagsan ayuu ahaa si kale haddaan kuugu dhigo buugga waa la ilaaliyaa warqadda buugga waa la ilaaliyaa waa wax wanaagsan marka bayaadka micnihiisu isla sidaasuu ahaa erayga deeqsi micno badan ma u baahna waa aabbahay waa hooyaday aabbaheed aabbaha dhalay aabbaha sii dhalay ayaa la yidhahdaa deeqsi deeqsiga de af soomaaliya waa taqaanaan sooma waxaa taqaanaan maxamed deeq axmed deeq deeqow deeq deeqo soo ma taqaanaan waa deeqo oo gabar ah af soomaali saxa waa deeqo magacyada soomaalida ee saxda ah waaye deeqo waxa waaye marka la fasiro oo nin laga dhigo waa deeq waxaa kaloo noqon karaa deeqsi qof wax baxaya qof wanaagsan gacantiisu furan tahay hebel tusaale shaashaa waa deeqsi wuxuu deeqsi ku yahay bastiyada jareertii jiraacda uu ku qoru deeqsi ku yahay hebel waa deeqsi axmedey deeqsi waaye lacagtuu dhiibaa feeri dhammaan magacyada meesha ku qoran waa wada af soomaali sax ah dadku waxay ku leeyihiin shaashaaya habartaa shiinas miya habartaa soomaali ma aha miya magacaan saan ee maxaa waaye وهذا سي سومالي نما يقول شيغاني هذا ما في سومالي اقوني هذا ما في سومالي اقوني وهذا فهمي سي سومالي نما يقول شيغاني مغعيدن سبيشال الرشبيل انغا اوريجينال سومالي ان ناي كو عديني وانا باري كرتا سو رشبيلها بدنا مغعيدودا ومغعيو افكا لا فلقلا waxaa arkaysaa muraayo waxaa arkaysaa isniino waxaa arkaysaa axado waxaa arkaysaa gacalo waxaa arkaysaa maxaa la jiray xareedo waxaad arkaysaa magacyo kuwaas ka sii badan oo saas oo kale ah maxaa la dhihi jiray iyo magacyo la mid ah laakiin haddaad rabteen hooyaday in la yidhaahdo mako بنت محمد بن عبد الله بن عيسى بن فلان بن فلان بن فلان ده ورتي عرب ما هو يدي عرب ما هو يدي عرب ما شبه الله بلو عبد الله حد وافق انت سما مركا واسين دونا جانس ادي سؤال توسق قبطه قيبت قرالك ايغو سو قرتو سو قبو وسو قبن دونا عدي aanan fahmin oo
sharaxaad kale u baahan. laakiin ujeedada guud ee aan live-ka u soo galay wuxuu ahaa hooyaday magaceeda oo dadka qaar mana soo galin wax iska caadi hadduu yahay, laakiin hooyaday aadaan u jeclay, way igu weyn tahay marka si magaceeda uusan confuse idiin gelinin oo aadan ugu wareerin oo aadan su-aalo badan hadhow isaga weydiin ayaan ugu talagalay in hooyaday magaceeda aan idiin sharaxo. tomorrow haddaan haddana magacay soo dhigo inaadan idhihin bulug iyo bayaad iyo maxaa la yidhahdaa, ma fahanteen? marka waa soo qabanaya qofkii raba in lasoo qabto. marka insha allah guud ahaana waa fahanteen. muuqaalkan ii sheer gareeya, ha gaaro soomaalida, hana u bixiyaan caruurtooda magacyada caynkaas oo kalaa. inkastoo hadda ani ha u bixiyaan leeyahay, ana hadda caruurtayda oo dhan intooda badan ama kulligoodba magacyada waxaan u bixiyey oo carabta, ujeedo kalena kama lahayno. markaan u bixinayna waxaan dhahaa ilaahu wado wanaagsan oo ay dadkaas mareen. waxaan u bixiyaa magac saxaabi ama saxaabiyad anoo ujeedadeedu ay iga tahay in ilaahay wadadii uu mariyo uu ii mariyo ayaan badanaa magacyada noocaas ugu bixiyaa. maxamed b m qabo telefoonka ku soo wacay, qabo sidaasaa. laakiin marka reerkayga rasmiga la yidhaahdo Shabeelle magacyadooda automatic noocaas wiil ay soo qabay dhahay waana iska dhacaya. fardheer saani كابتن قوى كابتن جي توفيق قوى اسكا دعايا ما قان علدا دينعودا ادي تاي ما قان قفكا دوا دعايا عدك ايور ولا نعيم محمد ابا مي مقلوسنيا ادي بولو انا لبنتودا سيدا دش بركيد maaha مدفورو كوكوسنو. ها صح شعيبو magacyadana waxaa kaloo ka mid ah ceeblo. sax waay ceeblo, yani wax ceeba ma laha. ceeblo ayaa la dhahaa ama ceebla. magacyadeena oo Shabeellaha especially gaarkay u leeyihiin waaye ceebla ama ceebla. maasha allah. marka hala yaabin haddii dee hadaad rabtaan magacyadan oo iska carbeedkana gaar macaan saas ilaahay hooyooyinka noo daayo. shucaybow soo qabaa dheheenniyow mana qabanaysa qabta telefoonka. shucayb qabo ku soo wacay haddee maxamed biya mina qabata muu diiday ma qabiyo. qoladan facebooka iska dhib badan mogtahay eegana anagu adkeynayana laga yaaba. kabtanka wuxuu leeyahy igu soo celi hadda ninaan wacaya isna ma qabanayo. markaas kabtanka waa kugu soo celiyey bal qabo hadda waa kugu soo celiyey qabo kugu soo celiyey kuleeyin madarkeeda. naima maxamed ilaahay ka cabso dee ma lagu maqla idhowsaa ma qabanaysa oo kugu soo celiyey. waa iska soo gebagabayn doonaaba. muhiimadeedu ugu weyn waxay ahayd inaan idin fahansiiyo intaas. xasan maxamed aan soo qabanayo. xasan oo qabo bal waa iska dhacayaan waa go-aya. bowe cabdullaahi cabdi guuleed cadde lama maqla miyaa bowe layma maqla miyaa. abwaan laguma soo wici karo. ninka abwaanka ugu qoranta isoo wacay dhahay
ملا كابتن دب ملا هاي شعيب شيقو ها واسكا بروبليم جود وما سنتين لما انتين وقال كان هلا شير قرايو فيسبوك اصحاب تجارسية لايك فلوها الوقت يوتيوب جنال الله هاي اسنا عبد الشكور شاشايا كقرن سبسكرايب سارة ماشي رو جنبال لك الريحة وحل عاقي إذا كمان بعيش جرير جلاعه وحبا إذن كجبت معايا لايك تاسي شير تاسي حبا إذا كجبت معايا معني انترنت استعمالي سنتين واحد فهمتين مرة وقبت لما سنتين وإذا يمقع أدوات فهمتين وإذا عيارتها اللي قداي مكو بلو بيات ديقس بلو عبدية كدلتين بالاسم هيك بريه وبالله التوفيق وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم